بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا labadii saac la soo dhaafay horta wax weyn ayaa dhacay heshiiskii waa la saxiixay nacam labada dhinac isku raaceen shuruudo badan ayaa jira dabcan Hormuz maanta waa la furayaa Netanyahu careysan yahay bin Ghafiir furkow tuurtay dhinaca kale waxa jira in gudaha Iiraan lagu qabtay waliba Iiraan ay kacsan tahay taasan ku bilaabeynaa Iiraan waxay qabatay ugu yaraan 4 qof oo mid kamid ah uu yahay mas'uul sare oo markaa ku howlanaa arrimo ku saabsan jaajuusnimo iyo wixii la midka ah Iiraan mudooyinkan cidii dareentay kale way dareentay waxa aad iyo aad u yaraaday yani howlgaladii target sana markaa meel hebel ay Israa'iil ay macnaha tooganaysay ama Mareykanka saas oo kale yani hadda wuxuu noqday xataa duqeyntii ugu dambeysay Israa'iil in ay noqoto mid cashwaai ah yani meelay ku dhufatay dabcan mesela Mareykanka saas oo kale meel hor u caynaa ay ku dhuftay laakiin hadda ilaa hadda lama sheegin yani mas'uuliyiina adiga la shirqoolay oo kale tusaale ahaan ama goobo hebel cusub wax saas oo kale yani marka almuhim afar ay qabatay video ay soo saartay oo markaa ay ku tusayso ayagoo markaa la hayo khaasatan waxay wateen alaab kala duwan oo ugu badan yahay Starlinkiga iyo qalab kale tusaale ahaan mesela isgaarsiin ah ay wateen taawata xalay marka aan ka soo bilowno wixii dhacay ileen Trump nabadoon ay u noqday waa arintan Israa'iil waxay samaysay shalato inay weerartay Beirut koonfurteeda arintan hadda waad ogtahay qad caswayaan Iiraan waa tay dhaaratay ay tiri waxaan u aarayaa oo dabcan noqonaynin jawaab la'aan wixii ay Iiraan sameeyeen Israa'iil ay samaysay xaaladda marka maxaa laga baqayay maxaa dhacay video ugu dambeeyay xalay waxaan ka hadalnaa marka in kala carar uu jiro gudaha Israa'iil ay bal macna wasaaradda dagaalka ama difaaca Israa'iil ay sheegtay in Iron Dome-ka heegan la geliyay in sirenka maxaan ku dhahay dhinac walba oo diyaarsan yahay dadka ay waxay ugu sheegtay ama in ay adiga guryaha ay ka soo baxaan dhacfan ay galaan goobaha gabaadka ah ayagoo marka ka baqaaya weerar xalay Iiraan ay ku soo qaado sida caadadan asaasi ahayd oo qorshaysnaa nacam xalay may soo qaadi lahayd Iiraan cid og ma lahan laakiin Israa'iil maadaama arinta ay dhacday Iiraan ay hadal waxa dhacay marka Trump inuu yiri Iiraan ayaan weydiinayaa inaynan weerarin caawa Israa'iil waan ka codsanayaa okay maxaa dhacay Iiraan waa wacay waxa uu u sheegay sida akhbaaraadka kala duwan ay sheegayaan in Iiraan please ha weerarin Israa'iil fadlan igu xushmeeya aniga camal soo Trump ama Mareykanka ma ahan cid ugu weyn ee Iiraan la dagaalamaysa almuhim Israa'iil iyo Iiraan waxa dhax galay xalato in xabad aan la isku tuurin oo Iiraan ay weerar qaadin Mareykanka Trump dhax galay ko Iiraan waxa ay u rabtay in Israa'iil weerarto muxuu ahaa ma ayada la soo weeraraa no waxay u rabtay inay u weerarto maadaama Lubnaan la weeraray hadalka bal hal mar si fiican u daadajay maskaxda yani waxa laga gorgortamay hadirtaan Israa'iil Iiraan inay soo weerarto iska dhaafe Lubnaan ma weerari karto waa soo socnaa Israa'iilta arintan maxay kala yihiin aanu iimaanina almuhim Iiraan marka uu ka dhameeyay arintaasi Iiraan way aqbashay طيب waxay tiri marka qararna عدم المهاجمة waxaan go'aansanay inaanan weerarin marka Trump oo noo sheegay in u fiirso insaxaab Israa'iil min junub Lubnaan وحصار وإزالة حصار البحري على الفور iyo marka uu noo sheegay ha insaxaabka yani inay ciidamada Israa'iil ay ka bixi doonaan Lubnaan koonfurteeda kow iyo cunaqabateynta in laga qaadi doono marka uu noo sheegay waxaan yiri ma weerarayno okay arintaasi hal mar u fiirso ciidamada Israa'iil waxa lagu qasbayaa iska dhaaf weerarkay inay ka baxaan macna ma weerarayno laakiin inay ka baxaan Israa'iil hal hadal ay leedahay oo waxay leedahay insaxaab min Lubnaan qabla nazc السلاح min حزب الله lan yahduth macnaha ma dhici karto macquul ma ahan Xisbullah oo aan hubka laga dhigin inaan isaga soo baxno wixii juhdi iyo rafaad iyo dhimasho iyo dhaawac nagu dhacay halkay aadeen camal saas oo kale leedahay laakiin guud ahaan xalato weerarkii Iiraan u qorshaysay Israa'iil Trump ayaa hor istaagay
laba arin ayaana macnaha markaasi loo ogolaaday Iran bal akhbaar kale jirta ma sugi karno oo dabcan meel qaar ah sheegay oo waxay leeyihiin tusaale ahaan lacaga Iran oo u balan qaaday saas oo kale meesha marka waxa ceeb iyo fadeexad ka raacday Haaretz xataa waxay u qoraysaa maqaal dheer ay ka qortay Haaretz u fiirso waxay ku tilmaamaysaa humiliated by Trump ay leedahay waa la bahdilay ninkii Netanyahu ahaa Trump ayaana bahdilay wuxuuna ku bahdilay in front of Iran horteeda ayuu ku bahdilay maxaa yeelay Netanyahu qorshe u degsanaa oo rabay bariga dhexe ama ereyadan inuu ula dhaqmo laakiin wixii dhanba leena lagaga tuujiyay waliba lindanaana lagaga tuujiyay camal saas oo kale okay meesha arinta marayso halkaasi waxa dhacay in ilaalada kacaanka Iran ay bayaan soo saareen ay leeyihiin تم التوصل إلى الاتفاق مع جانب الأمريكي مريكان كي أنه وان هشيني لكن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة مركز غزة كجرته لبنان حب جوجين كامل هكذا عيسى غزة سيدا سوكالة ومد كامل أو ميلها سيكو جيران فوري أحد دعاية كو إيران marka waxay leedahay ayadoo hadalkiisii wadata waxaana naxmilu maxaan ku rahay maya adiga yani Mareykanka wuxuu mas'uul ka noqon doonaa wax walba oo arinta xadgudub ah lagu sameeyo ayuu mas'uul ka noqon doonaa annaga waxaan diyaar u nahay in aan ilaalino xabad joojintaasi dhinacaasa kale laakiin wax alla wixii ka imaada Mareykanka mas'uulka ah laakiin ay kharq حتقول والله لغو سميو لهذا الوقف من قبل الطرف آخر يعني هدي عد أي يسأل أولي جدا طبعا هدي بدرسها ما يسأل مهم هذه وان يعني ويررنا وانا كأرسننا سياسة هذا إيران أوكي وحاول ما نسا مركا أرنتا ماشا مركا إماريسو يا جاري هشيس كاسي وإيران يمريكنكا إسرائيل ماشا ما كان موخطها مايا بل إن لبهد لي أي صحافة هذا الشيء يسا بن غفير وهذلي وحير كهر وحير هرتا أرنتن أنا ما خصيصه إيران إمريكا هشيس قاري we are not partners of this agreement يعني هشيس كأننا هرت partner كمالين معناها شغل كمالين بقى so we are not committed to it we are not committed to it أنا هبي راح تشغل كمالين يعني إنا نفولينه كم غصبانين سيدا درت هذا هشيس كان ورقبها الأخرى هيسكجروا we don't rely on that معناها أنا قارين تاسي كومتي عسكان إنه يعني هيسكجروا لكن بريشر كجودها دولك واقع الحال كأ وأنا سمعنا سيدا سوكله إن مريكان كأو نقول إنه بيرد ويرننا أسوي حبك مجلين هشيس كان نتنياهو حان كربنا إنه دهونا ما قصيصه هوشيس أوته هدو واي وانا قانا أنا أقول ليه هيصير حكومة دلوريدو جاء نتنياهو جودي أيال معناها أما ولا هندلي يا هندلايا بن غفير كأتقانه يهدي غزة حب جوجين إني كرد على أنت ديدنا لبنان تهذا كذا يروح لمت كام المهم حالة قدام بيسه هدام قوس وقوبه ماشي سوي حمراء يعني وحي زيادة سكر فيديو إن شاء الله تعالى فاهمين دون كان أنت قوس وقوبه يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.